السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن قدومي ما سند runtii xaquuq loo doodo tii ugu fiicneed ayaan maanta si dastuuri aan ugu doodaynaa in maanta dadka disableka ah oo baahida gaarka ah qabo xaquuqdooda loo doodo diiniya iyo bilo-aadanimo intaba markii la fiiriyo waa waxa kaliya ee aan matalaada dhabka aan u nahay waaye. mudane gudoomiye waxaad moodaa maalin walba qaabka doodaha loo galay iyo qaabka sharciyada looga doodo inaan hoos ugu sii dhacayno. tusaale ahaan sharcigan hadda laga doodayo waa sharci fiican, laakiin akhrinta labaad markii la gaaro waxay ahayd in noola qaybiyo nuqulkii oo muxuu ahay baalka noolama qaybin wax nuqul oo haysana male. warqadaas waxaanan ahayn oo aan ka haysan ilaan kii koowaad waa laga soo guuri kan labaad in la qaybiyay ahayd akhrinta labaadkiisa in la qaybiyay ahayd oo aan ka eegano ma hayno annagu looma qaybin. goorta la qaybiyana idinkaa sheegi doon. ma maqneen waa jooga aniga labadii baar fadhiba waa jooga. goorta la qaybiyey ma aqaan anigu. waa nuqulka labaad waxaan ka hadlayo oo akhrinta waa hagaag. waxaa muhiima marka tusaale aan u soo qaata gurigan hadda aan ku jirna haddii maanta qof disable ah oo curyaan ah oo gaari ku socdo muxuu ahay uu xibin ka ahaan lahay baarlamaankeenna meel uu ka soo galo ma laha. waa in dhammaan xafiisyada dowladda loo reebaa meel dadka baahida gaarka ee qabo ay ka soo galaan sida dhabtaana lagu muujiyo sharcigooda. waxaa kaloo muhiim ah siiba jaranjaryaalka in muxuu ahay dadka disableka ay jaranjaro ma fuuli karaan in meel loogu talagalo la sameeyo. wasaaradaha waa in ay ka siiyaan wasaarad walba waa inay abuurtaa agaasime waaxeed oo muxuu ahay dadka baahida gaarka ee qabo oo u adeego in laga sameeyo. hadda ma leh wasaarad leh muxuu ahay dadka baahida gaarka ee qabo siise xil ma laha. qofka inuu muxuu ahay xaquuqdiisa uu ku waayo muxuu ahay baahi gaar ah uu qabaa inuu xaquuqdiisa isku waayo maaha. gobolka banaadir ayaa ka jira meel maanta xafiiska dadka baahida gaarka ee qabo iska furiyaha gobolka banaadir unbaa ka jirta. anigu waxaan qabaa wasaaradaha 25 noqdaan 26 noqdaan wadaeba waxay ahaanayeen xafiiska ra'iisul wasaaraha ku dar dhammaan waa in laga abuuraa agaasimo waaxeed dadka baahida gaarka u adeego u qidmeeyo oo qof baahida gaarka ee qaba oo agaasimo ka yahay waa in la abuuraa. xaquuqda tan maanta aan muxuu ahay shuruucdeeda u samaynaynana xildhibaanada Soomaaliyeed waa inay ku dhiiradaan oo ay muxuu ahay si degdeg ah ugu ansixiyaan. aad u mahadsantihiin.